howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada koonfur galbeed ayaa waxaa ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaano ay ka mid yihiin Laba Warood iyo deegaanka Tugaar Hoos ee hoos tagta degmada Diinsor ee ka tirsan gobolka Bay. TV-ga RTN ayaa markii uu booqday deegaanadaasi waxa uu kuurgalay in uu wax ka weydiiyo xaaladda dadka deegaanka ku nool, balse dadka deegaanka ayaa ka gaabsaday inay hadlaan sababo la xiriira ammaankooda. Gudoomiyaha degmada Diinsor Ibrahim Maxamed Nuur oo maalin ka hor booqday deegaano aan sidaas ugu sii fogeyn ayaa la sheekaystay beeralayda ku dhaqan tuulooyinkaasi, waxa uu weydiiyay xaaladooda guud iyo nolol maalmeedkooda. Taliye ku-xigeenka ciidanka daraawiishta koonfur galbeed Taliye Maxamed Ibrahim ayaa inoogu warbixiyay howlgalka saaka ay fuliyeen. degmada Diinsor ku tabnay haraabta howlgal aan ka bani tuulo 30 kilomitir Laba Warood ay dhahan oo ilaa 30 kilomitir ah nimankii nabadiidka ah al-shabaabka oo ku raadiyaan ilaa iyo haddana ummadda Soomaaliyeed shacabka inay rabaan diyaar ah oo dagaalna diyaar aan ahayn tuuladina ilaa ay hadda wal hadda oo shacabkii Soomaaliyeed ay roogo yaan qororti yaan qoyni marka may ba diyaar ana inii ummadda Soomaaliyeed shacabka uu ku ilaalin adowkan ummadda Soomaaliyeed dig aniyo dig ummadda Soomaaliyeed shacabka lay galaan wal kale inii dagaalma diyaar yoo anihan tuulada roonigeeka inii ummadda dawladda gaan idin siiso ummadda shacabka Soomaaliyeed la walaab gurisha hortiis la ka aabayo wallahi waliba dawladda gashamayt ummadda Soomaaliyeed ya diyaar ana nolosha dadka deegaanka ku dhaqan ayaa ah mid caadi ah iyadoo howlgalkaasi uusan ku yeelan wax saameyn ah. Sidoo kale dadka reer guuraaga ah ayaa iyagana waxay u xagay baxayeen deegaano dhul daaqsimeed ah halkaasi oo ay u guurayeen. Xuseen Cali Geese, RTN.